ismaqal iyo daawasho wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii warbaahinta wadaagsin oo aan hadahan oo kale idiin soo tabin jirnay waa 31 July 2019 qodobada ugu doorka roon ee warkeenana waxaa ka mid wararkii ugu dambeeyay ee wada hadallada jabhadda uu hogaaminayo Korneyl Caare siyaasiyiin aan damiir lahayn oo durba loolan ugu jira xilka gudoomiye Yuriso miyay Puntland deganaanshaanta galmudug lacag ku bixisaa bil kasta warbixin ayaan idinkaga haynaa baaraadka oo war ka soo saaray warbixintii qadar la xiriirsay qaracii Boosaaso khayro oo ciidamada ahlu sunna u sheegay in ay hal shakhsi ka amar qaadan karaan wasafini oo shaaciyay arrin uu farmaajo kula taliyay si dawladdiisu u shaqayso daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena fadlan daawada waxaa xasuusinayaa inaad subscribe saaratid gambaleelkana furatid si ay kuu soo gaaraan wax walba oo aan halkaan soo galin haatana warkii oofsan xukuumadda Muuse Biixi ayaa maanta war ka soo saartay halka ay marayaan wada hadallada u socda jabhadda uu hogaaminayo Korneyl Caare Cabdullaahi Abubakar Cismaan wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa sheegay inay meel fiican marayaan wada hadalladaasi kala dhaxeeya jabhadda wasiir Cabdullaahi ayaa sidoo kale wuxuu ka dhawaajay in xukuumadda Biixi markasta ka go'an tahay inay nabad ku dhameysato tabashada Korneyl Caare wasiirku arintaasi ka hadlayana wuxuu yiri Caare waa nin Somalilander ah innaguna waxaynu ku caanamalnay 30 sanadood wax kasto inuu hor yimaado in si nabadgelyo ah lagu dhameystiro xukuumaduna go'aankeeda waa in hawshaasi ku dhamaato si nabadgelyo ah waayo nin kasta oo dhinaciisa iyo dhinaceena ka dhimanayaaba waa dadkeenii xilkuna wuxuu saaran yahay waa mas'uuliyiinta iyo dadkaas la doortay Ilaahayna kala xisaabtamaya marka dawladdu waxay ku dadaalaysaa in hawshaasi ay ku dhamaato nabadgelyo si kastaba wada hadalladan u socda xukuumadda Biixi iyo jabhadda Korneyl Caare ayaa u muuqda kuwo wax badan ka bedelan xiisadda dagaal ee ka taagan deegaanada gobolka Sanaag siyaasiyiin iyo dad xildoon ayaa durba bilaabay inay u loolamaan xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dhaawiciisa lagu daweynayo magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee caasimadda ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin reer Muqdisho ah oo doonaya in lagu bedelo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cismaan Cabdiraxmaan Yariso odayaashani ayaa tilmaamay in arrintani ay tahay dadnimo xumo isla markaana siyaasiyiintaasi ay mataleen shacabka gobolka Banaadir sidoo kalena waxay intaas ku direen in siyaasiyiinta xildoonka ah oo la xiriiray madaxweyne Farmaajo ay yihiin kuwa aan damiir lahayn isla markaana ay iska qaban doonaan warbixin ayaan idinkaga haynaa maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in bil walba lacag $10 ah uu ku bixiyo deganaansho la'aanta siyaasadeed ee deegaanada maamul goboleedka Galmudug oo muddo dheer loolan siyaasadeed iyo muran dhaleed uu kala dhaxeeyay xubno sare oo ka tirsan maamulka ahlu sunna oo la hadlay wadaagsin ayaa xaqiijiyay in maamulka ahlu sunna uu bil walba lacag gaaraysa 30,000 oo ku qaato maamulka Puntland sidoo kalena adeegyo lacag la'aan ah loo sameeyo lacagtan la siiyo ahlu sunna ayaa la sheegay in laga jaro canshuurta dekedda Boosaaso sidoo kalena gaadiidka iyo adeegyada kale ee u socda ahlu sunna ay si lacag la'aan uga soo degaan dekedda Boosaaso ee Puntland sababta ay Puntland lacagtan u bixisay ayaa lagu sheegay inaysan degin siyaasadda Galmudug sidoo kalena aysan isu raacin gobolada Mudug iyo Galgaduud oo ay maamulka Puntland u arkaan caqabada koowaad ee horumarkooda Galmudug iyo Puntland ayaa waxa ka dhaxeeya muran ku saabsan soodinta magaalada Gaalkacyo waxaana dhowr jeer dhexmaray dagaalo culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac badan wali xal looma helin murankaasi labada maamul waxaana la aaminsan yahay in ahlu sunna ay garabka ugu weyn ka helaan maamulka Puntland sidoo kalena wararka aan helnay ayaa xaqiijinay in Puntland ay qayb ka tahay go'aanada qaar ee ahlu sunna ka gaarto masiirkeeda siyaasadeed wasiiru dawladda arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta Anwar Gargaash oo ka hadlay maqaalka uu daabacay wargeyska New York Times ee looga hadlayay in Qatar ku lug lahayd qaraxa ka dhacay Boosaaso ayaa sheegay intaas ay cadeyn u tahay in xiriirka Qatar ay la leedahay argagixisada Gargaash ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray halista codka la duubay ma ahan mid lagu dabooli karo war-saxaafadeed la soo saaray wasiirka ayaa intaas ku diray ololaynta argagixisnimo ee ka dhanka Imaaraadka waa mid laga shalayn doono wuxuu intaas raacay in xiriirka afarta dal u jireen Qatar uu ahaa mid loo baahnaa toddobaadkii tagay wargeyska New York Times ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa daabacay cod maqaal oo ay ku wada sheekaysteen nin ganacsadaha u dhowr Ameerika Qatar Sheikh Tamim bin Al Ahmed iyo safiirka Qatar u fadhiyay Soomaaliya Xasan Xamsa isagoo ka wada hadlay qaraxa ka dhacay Boosaaso iyo dul ismagaalada lagu geystay madaxii DP World ee dekedda Boosaaso ganacsadaha ayaa u sheegay in safiirku inay ka warqabaan dilka iyo qaraxa oo sida uu sheegay ay ka dambeeyaan xulafadoodu si Imaaraadku uga guuro magaalada Boosaaso cabsi darteed qaraxaasi oo ay sheegatay kooxda Daacish ayaa waxa ku dhaawacmay 8 qof Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta kormeer ugu tagay ciidamada xoogga dalka ee ka tirsan guudada 15aad ee taliska qaybta 12aad
oo ka kooban ciidamadii dhawaan lagu qarameeyay ee ahlu sunna iyo ciidamada qaybta 12aad ee magaalada Dhuusamareeb kuwaasi oo hadda diyaar u ah howlgalo lagu baacsanayo argagixisada. Ra'iisul Wasaare Khayre oo ciidamada ugu tagay kormeer dhiirigelin iyo dardaaran ayaa ku booriyay inay si wada jir uga shaqeeyaan midnimada qaranimada sugidda amniga iyo howlgallada argagixisada looga xoreynayo deegaanada ay uga sugan yihiin dowlad goboleedka Galmudug. Ra'iisul Wasaare ayaa si gaar ah ula dardaarmay taliyaha guutada 15aad Generaal Mas'uud Maxamed Warsame iyo taliyaha taliska 21aad ee ciidanka xoogga dalka Generaal Yuusuf Maxamed Cabdulqaadir Kaanti isagoo uga ku adkeeyay inay ku gutaan mas'uuliyadda ka saaran difaaca dhiigga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada ay xilka u saaran yihiin. Mudane Xasan Cali Khayre oo sheegay in muhiimadda weyn ay dowladdu u leedahay tayeynta ciidamada iyo qalabeyntooda ayaa ballan qaaday in si dhaqso leh loo dhisayo xarunta 12aad ciidamadana loo dhammaystirayo dhammaan qalabka iyo tababarada ay u baahan yihiin si ay awood buuxda ugu yeeshaan fulinta mas'uuliyadda weyn. isku dhafka ciidamada xoogga ayaa xoojinaya guulihii la gaaray isku dhafada ciidamada booliska iyo nabad sugidda. Arrintan oo muujinaysa in Ra'iisul Wasaare Khayre uu ku guuleystay qorshihii ahaa qarameynta ciidamada ahlu sunna iyo ciidamada deegaanka ayaa si wada jir uga xoreeyeen deegaanada Galmudug ay argagixisadu uga sugan tahay. wararka dibadda aan ka hadalna ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni uu goob fagaaraha ka sheegay hadal gaar ah oo dhex maray isaga iyo Farmaajo. Museveni ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in dalkiisa uu la burbursan yahay sharci la'aanta. Waxaanu sheegay madaxweynaha Soomaaliya inuu san yeeli karin dowlad shaqeynaysa haddii xeerarka dalka aysan diyaarsanayn. Ayuu yiri madaxweyne Museveni oo ka hadlayay kulan isaga iyo Farmaajo si gaar ah u dhex maray wixii ay uga wada hadleen. wuxuu intaas ku daray in madaxweynaha Soomaaliya uu kula taliyay inuu marka hore dhiso sharciyada dalka kadibna ay muwaadiniintu bilaabaan bixinta canshuurta iyadoo la dhaqan garanayo xeerarka dalka markaas kadibna ay iman karto dowlad shaqeyso oo bixisa mushaarka ciidanka. madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa hadalkan xalay ka sheegay kulan uu aqalka madaxtooyada Uganda kula qaatay 19 jeneraal oo ka mid ah ciidanka Uganda ee jooga Soomaaliya kuwaas oo uga warbixiyay talada uu siiyay madaxweynaha Soomaaliya. waxaa saraakiisha uu la kulmay ee howlgalka noqday ka mid ah Joram Magume waxaanu ka bogaadiyay hawsha wanaagsan ay ka soo qabteen Soomaaliya. Museveni ayaa madaxweynaha Soomaaliya kula taliyay inuu yareeyo mushaarka ciidamada laakiin uu adkeeyo xeerarka dalka ciidanka xoog lehna dhisto si uu hadalka u dhigay. daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena maantay. intaan mid ka xiiso badan ku kulmi doona waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.